waa 22 arday kuwaas oo bartay cilmiga tiknoolajiyada waana dufcaddii u horeysay ee ka baxda jaamacadda College of Technology ee loo soo gaabiyay UCT taas oo gaar ah cilmiga tiknoolajiyada. munaasabada waxaa kala qayb galay wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo hay'adaha tacliinta sare. gudoomiyaha jaamacadda UCT Cabdullaahi Sheekh Ciise ayaa waxa uu sheegay in dalku u baahan yahay arday waxbaratay kuwaas oo dadka iyo dalkaba ay ka faa'iideysan karaan. waxaad barateen maadooyin kala duwan oo ku xiran IT-ga. qaarkiin waa programmers, software developers, qaarkiin waa network engineers, qaarkiin waa database analysis. waqtigan la joogo waddankeena oo kala burbura waxaa looga bixi karaa in la helo dad adinkoo kala ah oo barta. waxaan kaloo ognahay isla xisaabtan runa inaysan imaan karinin haddii aan la helinin dad adinkoo kala ah oo barnaamijyo samayn karo la iskula xisaabtamo. wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay ka shaqeynayso sidii ardayda jaamacadaha ka soo baxa ay fursado shaqo u heli lahaayeen iyada oo la kaashanayo ganacsatada Soomaaliyeed. haddaba annaga ka wasaarad ahaan mas'uuliyaddeena waxay tahay inaan idiin diyaarinno platformkii ama jawigii idiin masaamixi lahaa in aqoontiinnii iyo xirfaddii aad soo barateen inaad dalka ugu adeegtaan. laakiin adinka idiin taalla sidii aqoontii aad ugu beddeli lahaydeen mid lagu shaqay karo ficila. haddii hal abuurkiinna iyo ganacsatada la sugeeyo iyo platformka idiin abuurtay dowladda haddii la sugeeyo waxaan qabaa inaan mustaqbal ifaaya aad leedihiin. qaar ka mid ah ardayda qalin jabisay ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin qalin jabintooda iyaga oo dalka gudihiisa wax ku bartay. والله أدي أفرح سنة هاي مركبات إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكالي مركبان وحا مهد إسكالي والدينتي هويو آبي أدريال لما أنتو ورالياشين أو صبري aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qalin jabiyo jaamacadda UCT. magacaygu waa Khadar Aadan Saalax. aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qalin jabiyo jaamacadda UCT oo u gaar ah cilmiga tiknoolajiyada iyo waxyaabaha la xiriira. magacaygu waa Umar Maxamed Xasan. waxaan ka mid ahay ardadii maanta ka qalin jabisay jaamacadda UCT. jaamacadda UCT waa jaamacad baaxad weyn xagga waxbarashada marka laga hadlo. waxaana ku xisaabtamaan quality. jaamacadda UCT waxay bixisaa 2 field oo dhanka IT-ga ah. runtii aniga hadda waxaan arkaa macallimiinta maadaama iyagaa noogu yimid bannaanka. aniga hadda maanta bannaan uma baahna, iyagaa noogu yimid bannaanka ugu baray dalkeena dhexdiisa uma baahna umaanaya. Cali Axmed, warbaahinta qaranka.